guddi ay u igmadeen shalay xildhibaano ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya inay soo diyaariyaan doorashada madaxweynaha dalka oo ay sheegeen inay dhacayso 30 bishan Abriil ayaa waxa ay maanta kulan ay isugu yimaadeen ku sheegeen in madaxda sare ee dawladda ay hareer mareen sharciga iyo axdi qarameedka ay ku shaqeyso dawladdu waa kan xildhibaan Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil oo ka mid ah guddiga waxaad ogtiin madaxdii sare ee dalku sharciyadii dalka inay meel iska dhigeen waxaad ogtiin mas'uuliyadii ay haysteen iyo madaxnimadii iyo taytalkii ay haysteen inay ka doorteen saxiixayaal sidaas daraadeed dalku wuxuu ku dhici karaa banaani cidla oo madax lahayn sidaas daraadeed baarlamaanka waxa ku qasban yahay inuu badbaadiyo qaranka Soomaaliyeed oo qabto saas ayaa ku dhacday in doorashada la soo hormariyo waqtigeediina laga soo hormariyo sidoo kale xildhibaan Maxamed Dhaqane ayaa isna meesha ka saaray hadallo tilmaamayay in ay diidan yihiin kana soo horjeedaan dib u habeen lagu sameeyo baarlamaanka haatan jira ee kuwii reformka ansixiyay bishii February 3 baarlamaankana oo ah oo soo jeediyay eray annaga nala ka xigtaya waa diidayaan idaacadaha laga yiri baarlamaan annagu ma diidin reform ma diidin 550 qofood inay shaqeyso oo aanan barkood quality lahayn barkoodna danti Soomaaliyeed u shaqeynayna annagaba ka soo horjeedno koox xilwaanada nimaha kursi isku dhajinayo waa inay banayaan diyaar u ah laakiin uga tagi maayaan bahal iyo haway cunayo shacbiga Soomaaliyeed Shariif Xasan Sheekh Aadan gudoomiyaha darfaha lagu dhagan yahay ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa isagu dhawaan arin sharciga ka fog ku tilmaamay doorashada ay qaban qaabinayaan xildhibaanadani waxa uu shaki geliyay si ahaanshaha baarlamaanka ee xildhibaanadan laani arrinkaas arrin aanan jirin baan u arkaa runtii doorasho madaxweyne hadii Ilaahayna gaarsiyo waxaan rajaynaynaa isbedelka roadmap-ka in lagu wada shaqeeyo ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka oo dhan ay go'aansadeen isbedelkaas oo ummadda Soomaaliyeed inuu gaarsiin doono dawladnimo iyo dawlad wanaag aan aaminsanahay waqtigiisii oo August ku eg xilligaas in la doorto waxa ka horeeyay waxaan aaminsanahay wax ummadda Soomaaliyeed ogolaanaysan wax caalamka ogolaan doonaan haddaba waxaan la garanay sida ay u suurtagali karto in xildhibaanadani ay doortaan madaxweyne shaqeeya iyadoo ay diidan yihiin kana soo horjeedaan qaabka ay wax u wadaan madaxda ugu sareysa dawladda ku meel gaarka